بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaan u mahadcelinayaa maamulka guud ee jaamacadda maamulka agaasinka xafladda tan quruxda badan martida qaybaheeda kala duwan ardada iyo waalidiinta fursadda u helay inay ka soo qayb galaan ama ay ku guuleystaan inay xafladdan yimaadaan intaas kadib waxaan u malaynayaa maanta waxaa loo joogaa xafladda tan ay tahay toddobaadka abaalmarinta ee jaamacadda Balaasma abaalmarinada meesha ku qoran sida aragtaan waa afar ay hadda la soo qoray laakiin way badan yihiin afarta ugu waaweyn oo la soo xusay waxaa kow ka ah abaalmarinta deeqaha waxbarasho jaamacadda Balaasma qaralaas iyo madaxda iyo ciddii go'aanka iyo garashada sameysay in la abuuro deeq waxbarasho in la siiyo si hufan oo cadaalada bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan cali wuxuu ka dhawaajiyay deeqdu ma waxay ku egtahay Muqdisho bas waxaan leeyahay jaamacadda sida ogsoontihiinba waxay ka mid tahay jaamacadaha waaweyn ee dalka ku yaalo ama xarumo ku leh caasimadda gobolada ka baxsan taa waxay keentay sidii loo balaariyay jaamacadda in loo balaariyo fursadaha la helayo ay helayaan ummadda Soomaaliyeed ama ay helayaan dadka waxbarashada jecel alxamdulillah waxaan ku guuleysanay haddii aanan maamulka xarumaha gobolada inaan ka taabagelino sida looga taabageliyo xarunta weyn deeqa waxbarasho oo la mid ah kuwa halkan lagu bixiyay inkastoo aanan gaarin muxuu ah markii xarun loo xisaabiyo 100 kursi laakiin waxaan bixinaa inba meel la eg baan bixinaa oo fursad deeq waxbarasho ah waxaana ka faa'iido dad tabar yar ama u baahan fursadaas waxaan insha Allah rajaynaynaa inaan kordhino fursadahaasi oo aan ka dhigno mid ay ka faa'iideystaan bulshada kala duwan gaar ahaan dadka aadka ugu baahan waxaan leeyahay waxa ku baxayo deeqahaasi kharashaad ama lacago qarashkaasna waxa badilkeeda badalka bixiyo mu'assasada waa ka mahadcelinaynaa meel walba joogo ardayga Soomaaliga ee hela fursadaasna iyo waalidkaasba wuxuu u soo hambalyeynaya u soo duceynayaa waa maamulka jaamacadda iyo madaxda jaamacadda marka waxaan leeyahay aad ayaa u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan dhaho abaalmarinta labaad waa mid ku saabsan macalinka ama baraha ardaygii markii la dhiirigeliyay ama fursad la siiyay waxa ku xigay in la dhiirigeliyo ardaygii macalinkii wax barayay taana waa wax wanaagsan in la abuuray fursadaas loona sameeyay macallimiinta meel ay joogaan waxa ku xigo abaalmarinta kale oo ah abaalmarinta maamulka ardayga waxa maamulayo maamul macalinka waxa maamulayo maamul hadii ardayga la abaalmariyay macalinkii la abaalmariyay maamulkiina waa la raaciyay waana wax wanaagsan midka u dambeeyo ardaygii markii galaaska uu yimaaday waxa la bilaabay waxbarashadii dadaal uu sameeyay ardayga asna waxa loo abuuray fursad abaalmarin ah marka waa iskaabaya dhamaantood marka fiirisid waana wax wanaagsan inay jaamacaddu ama madaxda jaamacadda ay garteen in la abuuro toddobaad la iska abaalmariyo hada afartaan aan joognaa insha Allah inay balaariyaan waa ka sugeynaa. Assalaamu calaykum.